waxaanu joognaa duleedka magaalada Garowe ee magaalada madaxda Puntland magaalada Garowe waxa ku yaalay 5 ilaa 6 idaacadood oo madax bannaan oo wararka iyo barnaamijyada u sii daaya dadka ku nool deegaankan laakiin idaacadahaasi iyo idaacadii aad hore u maqli jirtay ama aad horeba u aragtay waxa ka duwan Radio Dalmar Radio Dalmar waa idaacadda wareegta oo gaariga saaran oo marba meel laga shido ama meel laga daaro haddii waayo hore aad maqli jirtay idaacadda wareegta oo caan ahayd berigii intaanay dhicin xukuumaddii hore ee Soomaaliya oo jabhadihii ku kacsanaa ay isticmaali jireen idaacadda wareegta oo rasmi waa Radio Dalmar سماعدها وين باكورة كبن يورل لياشي تدنا مسافة دوهد بتشوجو أي برنامج هذا كوباهية وحيدا عدن إسكالا أحمد أول جامع أحمد أول حدكو كانت فكرة دلائنا تسوي راديو جوريجا فكرة ده وحكو كاني مركي أنو أرجناي من دراسات أنو كوسا مايدناي ملك الدوان صوماليا أما بنتلان وهدا أن شغلنا كم تاي أي سنجارين إذا عدها FM تا أيانو هندسناي إن أوباهيهن دتكو إن لو جيو إذا عدا جورجورته وهذا ماشي أي شغلان وقتها سي أي باهيد هذا أي وقشكتان إسلام مركز نفريمة يقعد على القلوة أيو شكتو إن مركز سنة مكاينو أركينو مسمعها سمع لقد جيستا مسافة كل جادة مايا وح سمعها هو لقد جيستا إفهمتن ولا لقد جيستا ضدك مركان أوتقنا تصالحان أن تقنا هذا الدجان كأتكتم هذين وكلا تكرق مركان تقنا تكرق وحن وصمينا سمعنا وقد دارنا ضدك عن مقلين هيصير ركور هذا أنت ركور هذا هيستنا وحي كدارنا يعني هل كيجوجان بي ركور هذا أي كدارنا برنامج هذا مركز سيدي سالم حكي كوبي برنامج هذا أنا حاج عن صارنا وحسياسة شغل كمانها وعن حاج صارنا رمها بالشدة ولي بوعي قلنا تضع حاج صارنا سيدا هذا الدرامي أما إذا ركتد وحوي وحكدارن برنامج كوسابسن حاجة نظافة الرضا إيوه وليبا شبنكا dhibaatada uu keeno dagaalanka shubag deeyda caddi marka wariyal bay u baahan tahay wariyaashuna ma gaariga la socdaan wariyaasha inta badan studio waxaan ku leenahay gudaha magaalada Garowe marka waxaan soo saarnaa barnaamijyada aan diyaarinaa mararka qaar koodna hal wariya waa raaca laakiin inta badan waxaan barnaamijyada sii deeysan marka maxay isugu jiraan barnaamijyada waxay isugu jiraan caafimaadka waxbarashada la dagaalanka wacyigelin ku saabsan arrimaha burcadbadeeda sida aad la socotay deegaankan marba jirtay burcadbadeedu aad ugu faaftay waxay tagtay inaan wacyigelin aan u tagno dhulka xeebaha ah ee Puntland bulshada aan ka wacyigelino door muhiim ah aan ka qaadanay in ay burcadbadeedu ay dhulkan ay ka suudho iyo waliba barnaamijyada ku saabsan xuquuqul insaanka arrimaha dimuqraadiyadda oo la doonayo Puntland inay dhawaan ay u guurto waxaasoo dhan baanu xoog saarnaa marka wacyigelintu waa tiro badan sida la socotid ilaalinta deegaanka ayaa kamid ah hadda socodkan waxaan ka nimi dhul balaaran oo aad hadda masaafadiisu inuu ka fog tahay oo dhulka hadda Puntland iyo iska galaan Ethiopia meel la Dar es Salaam ayaanu socodkan aanu ka nimi dhinaca kale waxaan la tagnay Jiriban meel la dhaho oo aanu ka soo wacyigelinay sida ay shubanka iyo ay magaranaysaa iskaga ilaalin lahaayeen iyo nadaafadooda sida ay magaranaysaa marka ma la oran karayaa barnaamijyadiin waxa weeye qaar xagga samafalka oo tusaalahaan hay'adaha kala shaqeysaan mise wararna dadka waa sheegtaan mararka qaarkood way jirtaa inaanu hay'adaha samafalka iyo aanu kala shaqeyno dhinaca wacyigelinaha ay wadaan laakiin wararka waxa weeye naguma badnaa inaanu mararka qaarkood aan samayno wax ay dadku danaynayaan ma ahane wararka inta badan xoog ma saarna laakiin barnaamijyo ku saabsan wacyiga ummadda hadba ka tarjumaya qiimkooda iyo maskaxdooda siyaadin kara ayaanu samaynaa idaacadaha kale sida lagu yaqaan waxay leeyihiin waqti ay hawada soo galaan iyo waqti ay ka baxaan Radio Dalmar taama kaga duwan yihiin maleedii waqti ay soo gashaan waqti aan soo galno waxa weeye hadba meesha aan tagno baan waqti gaar ah aanu u shidnaa waxa weeye waqtiga ay bulshadaasi ay firaaqa ay leeyihiin laakiin anagu waqti gooni ah aanu leenahay
ma jirto laakiin mar kasta waxaa dhici karta inaanu maalintii oo dhan aan shaqo ku jirno habeenkiina waxaa dhici karta shaqo inaanu ku jirno laakiin su'aal kale haddaan ku weydiiyo haddii wakhtiyada qaarkood aanay jirin barnaamijyo wacyigelina oo tusaale ahaan hay-adaho kale aad kala shaqaynaysaan idaacadda ma iska shidaan idaacadda waa iska shidnaa mar kasta waxa weeye waa inay dadku ay arkaan bulshada mararka qaarkood annaga waxaan daarnaa ma ogtahay hay-ado iyo wacyigelintaas intaanu iska dhaafnaa waxaan diyaarinaa barnaamijyo ma garanaysaa muhiim u ah bulshada baanu intaanu samaynaanu u daarnaa shidaalada baabuurka ku shubanno xataa shirkadaha mararka qaarkood intaan u tagno aan dhahnaa shidaalka nagu shubo oo si aanu deegaankaasi aan u gaarno hadda samtel baa ka mid ah shirkadaha aada noo caawiya markaa dadka idin dhegaysta radio dalmar ma waxa u yaqaanaa idaacadda wareegta mise radio dalmarun idaacadda wareegta oo gurguurtay ku leeyihiin reer miiga sida aad la socotid waxay sameeyaan ma og tahay waa iska geedi marka waxay iyagu ku ablaagareeyeen wareer idaacaddan gurguurta maxay tahay bay ku leeyihiin markaa u tagto marka idaacadda gurguurta ayay dhahaan gartay maxaa idiin qorshaysan markaa mustaqbalka haddii aan la yidhaah mustaqbalka waxaa noo qorshaysan inaanu soomaaliya oo dhan aanu ku faafno waxaanu rajaynaynaa in ma garanaysaa dadkeenna oo dhan ay xagga wacyigelinta ay isku mid ay u helaan sidaan la socno dee magaalooyinkii waaweynaa waxa weeye waxay haystaan idaacado badan laakiin annagu waxaanu xoogga saarnaa dhulka miyiga ah tuulooyinka aan idaacadaha helin marka waxaan rajaynaynaa inaanu gaadiid intaan ka badan aanu samayno oo waxa weeye meel kasta iyo tuulo kasta iyo deegaan kasta iyo gobol kasta uu baabuur u gaaro helo oo dalmar ay ku qoran tahay si uu dadkaas wacyigelinta u gaarsiiyo hadda waxa weeye dhulkii baan ugu ballaartay hal baabuurna way tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay haddii suurtagal ay tahay bal hadda ma eegi karnaa si dadku fikrad uga qaataan idaacadda wareegta iyo qalabkeeda iyo sida aad la socotid bahalkan kore waa codbaahiyaha sameecadaha aad ka dhegaysanaysaan fmt waatan oo waxa weeye dadku ay rikoorada ay ka dhegaysanayeen fiilooyinkanna waa fahmi kartaana de waa qalabkii waxaan taxayay korontadii uu bahalkan uu dabka ka qaadanaya baabuurka baterigiisu isagu iskuma xirna laakiin waa qalab loogu talagalay dabdhaliya oo halkan ayuu systemkiisi wixiisi ay ku xiran yihiin baabuurkan marka wax badan buu iskugu jiraa mararka qaarkood haddii roob uu noo yimaado waxaanu leenahay teendhadii aanu roobka aanu ka jirsanaynay si markaa aanay dee u qoyin qalabkan dusha saaran oo kale qalabkan dusha saaran oo kale waxaanu leenahay teendhadii oo aanu mararka qaarkood aanu ku dadno anteenadu waa ujeedaa kore oo waxa weeye waa bahashii gudbinaysay codka marka waxa weeye fikraddan waxaan rajaynaynaa haddii rabbi idanka ka dhigo adigoo khabiirana inaad wixii cilmiga aad haysid aad nagu sadin aad iyo aad baad umahadsantahay laakiin tusaale ahaan haddaa jidka kula kulantaan qof aad doonaysaa inaad waraysataan ma stuudiyaha la tagtaan mise halkan waa ku samayn kartaan qalabkii rikooradii baan wadanaa oo waxa weeye aanu ku waraysannaa isla markaasna waxaan samaynaa hadda markaanu tusaale aan tagno degmada ayl markaan tagno dadkan iskugu yeernaa barnaamijyadoodaan u qabannaa kombiyuutarka yar iyo irkaamaan wadannaa waa ka duubnaa markaanu ka duubno baanu barnaamijkii aan u soo deynaa xataa waxaan samaynaa haddaan doonno moobiladayada baa waxaan dhahnaa dadku waa naga soo wici karaan halkaas aragtidooda ay ka dhiibtaan sida ay ma garanaysaa ay u arkaan barnaamijyadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay nasiib wanaagsan baan idiin rajaynayaa haddii aad maqli jirtay ama maskaxdaada ay ku soo dhici jirtay idaacaddu inay tahay wax aad u weyn oo dowladahoo kale tusaale ahaan ay leeyihiin oo marka la rarayo u baahan qalab badan iyo hawl badan iyo waa taa bahasha idaacad ahayd intaasa lagu soo koobay saa arkaysaa maana u shaqaynaysaa nasiib wanaagsan baan idiin rajaynaya walaal marka الرحمن وقل رحيم ربنا داسي رنا الله يبو الرحمن وقل رحيم ربنا داسي ريقي
يا بار رقي لا كوفيو ريراش قبل ما ريحيو الريح أنكريسن الله يا ربنا كرحمن ريقي يا بار رقي لا كوفيو ريراش قبل ما ريحيو الريح أنكريسن الله يا ربنا كرحمن قولي بماذا الربطاي رحلقي يا كتاب كباسو الرقصو قولي بماذا الربطاي رحلقي يا كتاب كباسو الرقصو ardayday quraanka ku raago ardayday quraanka ku raago aliya janiyo rag wanaagsan oo rabbiya rasuul riyaaqayo rabdoona riyaaqayo rabdoona ربي يا رسول رياقيو رسول رياقيو رسول